مثلا ninka inuu ku necab yahay haduu ku dhaho dad korteeda haduu ka dhaho dad kortiisa haduu ka dhaho iyo family kortiisa haduu ka dhaho caruurteeda hooyadood ninkaas uu ku necab yahay kumana jecla haduu ku jecel yahay muxuu ku oran lahaa ma garanaysaa xaaskayga gacalsadayda waaye xaaskayga waaye she's my wife xaaskaygaan jeclahay weeye hadallo qurux badan adoo ku isticmaali karo sababtu kugu isticmaalayo ma ku fikirtay because he doesn't like you caruurtu bis kugu haystaa anigana adduunkan u necbaan lahaa ninka anay dhaho caruurteyda hooyadood wallahi wiil baa marka hadda iisoo qoray caruurteyda hooyadood waxaan ku dhahay adigoo oran kara my wife why aa u isticmaalaysaa luuqyadaas oo dhan caruurtaada oo dhan intaad xabad garabka soo saaratid maxaad ugu tilmaamaysaa caruurta maxaa ugu riixaysaa ayada so that means hadalladaas waxaa loo isticmaalanaya aan la rabin oo aan long term wax laga rabin laakiin place holder naagaha iska ah ma garatay so marka be careful ninkaaga hadallada uu kugu dhahayo meelaha publicada fiiri indhaha u furo hadallada qaar uu ku dhahayo because nimanka way isfurfuraan markay dad kale ila joogaan ma fahanti dhaqan kaleeto iyo waxay la soo baxaan mataqaanaa character kaleeto wejigooda ayuu saarmaa iyo hadalkooda xataa wuu isbedelaa luuqa markuu guriga markaas joogtiin macaan ku yahay waa aragta qaarkood nimanka qaar baa kulli mudaan marka wada aadiin bahal iyo kastoo wuxuu dareemaa kastoo inuu ku cuncuni karuu dareemaa ma fahanti hadallona nooc kale ku hadlaa